Marka aad fiirisid maabkan, markiiba waxa ay indhahaagu qabanayaan kala duwanaansho deegaan. Marka aad eegto Bariga Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, Itoobiyada Bari, Waqooyiga Kenya iyo Jasiiradda Carabta, waxaa kuu muuqanaya muuqaal gebi ahaanba ka duwan kan kale ee Afrika. Halkii laga filayay keymo roobaadyo iyo dhul cagaaran, halkan waxaa ka muuqda dhul saxaro ah iyo cimilo qallalan oo ka duwan Afrikada kale ee dhulbaruhu maro. Haddaba su'aasha markiiba qalbigaaga ku soo dhacaysa waxay tahay: maxaa sababay in Soomaaliya iyo guud ahaan Bariga Afrika ay noqdaan meelaha ugu qallalan ee ku dhow dhulbaraha dunida, innaga oo og in dhulalka ku dhow dhulbaraha badanaa ay caan ku yihiin roobab badan iyo kaymo cufan, maadaama ay qorraxdu si toos ah ugu dhacdo sanadka oo dhan? Muuqaalkan waxaan ku sharixi doonaa sababta keentay roob yarida Soomaaliya iyada oo qadka dhulbaruhu uu maro, iyo sababta ay Soomaaliya uga duwan tahay dalalka kale ee uu maro dhulbaruhu sida Kenya, Democratic Republic of Congo, Uganda iyo Gabon, kuwaas oo hela roobab badan iyo qoyaan joogto ah. Halkan waa Qadiimi Documentary, waxaan ku baahinaa dokumentariska iyo dhacdooyinka faa'iidada leh si wax looga barto. Haddaba haddii ay tahay markii kugu horreysay channelkan, fadlan like dheh muuqaalka, channelkana ku soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran. Qalaylka Soomaaliya ma aha mid uu hal sabab kaliya keeno, balse waa natiijada isku darka dhowr arrimood oo iskugu jirta cimilo iyo deegaanba. Balse si aan u fahanno dhowrkaas arrimood, waa in aynu marka hore fahanaa waxa loo yaqaano ITCZ, Intertropical Convergence Zone, ama mashiinka roobabka adduunka. Adduunyada qaybteeda dhexda ah ama dhulbaraha waa meesha ay qorraxdu sida ugu kulul ugu dhacdo. Kulaylkaas daran wuxuu keenaa in hawadii meesha ka dhoweed ay kululaato, kadibna ay kor u kacdo sida uumiga biyaha karkaraya oo kale. Markii hawadii dhulbaraha ay kor u kacday, waxaa dhashay meel maran oo cadaadis hoose leh. Si meeshaas loo buuxiyo, waxaa dhanka waqooyi iyo dhanka koonfur ka yimaada dabaylo qabow oo ku kulma xariiqdaas dhexe. ITCZ waa marka dabaylahaas ka imaanaya waqooyiga dunida iyo koonfurta dunida ay iskugu yimaadaan halkaas. Kulankaas labada dhinac ka yimid ee dhexda ku go'ay ayaa la yidhaahdaa ITCZ. Haddaba maxaa ka dhaca aaggan? Marka dabaylahaas iskugu yimaadaan dhexda, maadaama aysan dhulka hoos u geli karin, waxay bilaabaan inay awood la xiriirta kulaylka qorraxda darteed kor ugu baxsadaan. Tani waxay keentaa in hawadii kor u kacday ay dhasho daruuro waaweyn oo keena onkod iyo roobab mahiigaan ah. Sidaas ayuuna roobku ku yimaadaa. Laakiin aaggan waa aag socdaalka saaxiib la ah. Waxay mar walba u guurtaa dhinaca adduunka ee xilliga xagaaga ku jira. Dhaqaaqan ayaana saameyn weyn ku leh roobabka dunida. Xilliga xagaaga ee waqooyiga dunida, gudaha qaaradda Aasiya si aad ah ayuu u kululaadaa. Kulaylkan xooggan wuxuu soo jiitaa ITCZ, taasoo keenta inay waqooyi aad ugu durugto. Natiijadu waa waxa loo yaqaano monsoonka Aasiya. Dabaylo badan oo qoyaan wata ayaa ka soo gudba Badweynta Hindiya, laakiin halkii ay Afrika iman lahaayeen, waxay u jeestaan Hindiya, Bangladesh iyo koonfur bari qaaradda Aasiya. Taas macnaheedu waa in qoyaankii baddu badankiis ka maqnaado Soomaaliya iyo Jasiiradda Carabta, waana tan Soomaaliya ka dhigtay dhul qallalan oo saxaro la moodo. Sababta labaad ee ka qayb qaadata qalaylka iyo roob yarida Soomaaliya waa buuraha Bariga Afrika. Waxaa jira dabaylo qoyan oo ka yimaada Afrika, kuwaas oo la kulma caqabad weyn marka ay soo gaaraan buuraha silsiladda ah ee Bariga Afrika, kuwaas oo ka bilowda Eritrea kuna fidsan ilaa koonfurta qaaradda. Marka hawadu ku dhacdo buurahaas, waxaa lagu qasbaa inay kor u kacdo. Kor u kacaasna wuxuu dhaliyaa in hawadu samaysato daruuro iyo onkod, halkaasna roobkii ay ka da'aan. Sababtaas awgeed, galbeedka Itoobiya waxaa ka jira kaymo cagaaran oo qurux badan. Xitaa geedka qaxwaha ee caanka ah loona yaqaano Coffea arabica, asal ahaan halkaas ayuu ka soo jeedaa. Buurahaasi waxay qabtaan inta badan qoyaanka hawada. Marka hawadu ka gudubto buuraha oo ay gaadho dhinaca bari, waxay noqotaa mid qallalan. Tanina waa waxa loo yaqaano rain shadow ama hooska roobka. Hooska roobkaas ayaana si weyn uga qayb qaata qalaylka Soomaaliya. Maxaa dhaca xilliga jilaalka? Jilaalka xaaladdu way isbedeshaa. Qaaradda Aasiya way qabowdaa marka loo eego Badweynta Hindiya. Taasi waxay dhalisaa dabaylo ka soo baxo Aasiya kuna socda badda. Dabaylahani waxay qaadaan qoyaan badan. Waxay roobab gaarsiiyaan Vietnam iyo qaybo ka mid ah Hindiya, laakiin Soomaaliya nasiib uma laha. Sababtu waa qaabka xeebaha Soomaaliya. Dabaylahaasi badanaa waxay maraan dhinaca xeebta, halkii ay gudaha dalka u soo geli lahaayeen. Sidaas darteedna roobab badan ma keenaan. Badweynta Hindiya iyo biyaha qabow. Waxaa jira sabab kale oo weyn. Xilliga monsoonka, dabaylaha xooggan waxay biyaha dusha sare ee badda u riixaan meel fog. Markaas biyaha qabow ee hoose ayaa kor u soo baxa. Nidaamkan waxaa loo yaqaanaa upwelling.
Xeebaha Soomaaliya ayaa leh mid ka mid ah nidaamyada upwelling-ka ugu xooggan dunida. Biyaha qabow waxay yareeyaan uumiga hawada. Marka uumigu yaraado, daruuro iyo roob badan ma samaysmaan. Sidaas darteed cimiladu way sii qalashaa. Laakiin waxaa jira faa'iido weyn. Biyaha qabow waxay keenaan nafaqooyin badan. Taasi waa tan ka dhigtay xeebaha Soomaaliya meel hodan ku ah kalluunka. Mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee qaleylka Soomaaliya waa waxa loo yaqaano Somali Jet ama dabaysha qarsoon. Waa marin hawo oo aad u dheereeya oo ku socda meel u dhow oogada dhulka. Marka hawadu si xawaare sare leh ugu socoto dhinaca Aasiya, hawada sare ayaa hoos u soo degta si ay booskaas u buuxiso. Hawo hoos u soo degaysana ma samayso roob. Taa beddelkeeda waxay xoojisaa qaleylka. Sidaas darteed, Somali Jet waxay ka mid tahay sababaha waaweyn ee Soomaaliya ugu qalalan tahay dalalka kale ee ku yaala isla loolkaas. Turkana Jet iyo saameyntiisa. Waxaa kaloo jira Turkana Jet. Dabayshan waxay ka dhalataa kala duwanaanshaha heerkulka ee u dhexeeya Badweynta Hindiya iyo gudaha Afrika. Waxay soo martaa marin buuraha u dhexeeya oo ku yaala Turkana Basin. Kenya waxay dabayshan ka heshaa koronto badan oo dabaysha laga dhaliyo, laakiin dhinaca kale waxay sii xoojisaa qaleylka Soomaaliya iyo waqooyiga Kenya. Madagascar iyo hooska kale ee roobka. Jasiiraddan Madagascar iyaduna waxay leedahay door muhiim ah. Buuraha ku yaala jasiiraddaas waxay qabtaan qoyaanka dabaylaha ganacsiga. Natiijadu waxay noqotaa in dhinaca bari ee Madagascar ay yeeshaan kaymo roobaad, halka dhulka ka dambeeya uu noqdo mid ka qalalan sidii caadiga ahayd. Haddaba gunaanadka marka la soo koobo qaleylka Soomaaliya ma aha sabab keliya, waa isku darka dhowr arrimood oo waaweyn. Dhaqdhaqaaqa ITC-SET, maansuunka Aasiya, buuraha bariga Afrika, hooska roobka, biyaha qabow ee upwelling-ka, Somali Jet, Turkana Jet iyo saameynta Madagascar. Dhammaan arrimahan marka la isku daro waxay abuureen mid ka mid ah gobollada ugu yaabka badan dhinaca cimilada dunida. Waana sababta Soomaaliya iyada oo ku taalo dhulbaraha ay uga mid noqotay meelaha ugu qalalan uguna qoyaanka yar meeraha aynu ku noolnahay.